Isku soo noqod wanaagsan akhyaarta channelka waa anigoo ah PMA. Muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa farqiga u dhexeeya Samsung Galaxy A51 iyo A71. Taleefannada Samsung Galaxy A51 iyo Samsung Galaxy A71 aad ayay iskugu eg yihiin, labadoodana kama tirsana taleefannada flagship-ka ah, yacni taleefannada qaaliga ah sida Samsung Galaxy S20, iPhone 11 Pro, OnePlus 8. Way ku soo xigaan, waxaana loo yaqaanaa mid-range. Waxaan hadda bilaabeynaa waxa ay ku kala duwan yihiin labadan taleefan maadaama ay aad iskugu eg yihiin. Aan ku hormarno Galaxy A51. Cabirka shaashadiisu waa 6.5 inch, waana Super AMOLED. Resolution-kiisana waa Full HD 1080x2400, halka A71 uu yahay 6.7 inch. Inta kale waa ay isku mid yihiin. Haddii aan u imaano chipset-ka, A51 waa Exynos 9611, halka A71 uu yahay Snapdragon 730. A51 maskaxdiisu waa 128GB, RAM-kiisuna waa 4GB, 6GB, sidoo kale 8GB. A71 maskaxdiisu waa 128GB, RAM-kiisuna waa 6 iyo 8GB. A51 kamaradiisa dambe waa 48 megapixel, kan horena waa 32 megapixel. A71 kamaradiisa dambe waa 64 megapixel, kan horena waa 32 megapixel. Labadooda waxay ku shaqeeyaan version-ka u dambeeyay Android 10 One UI 2.0. A51 batterigiisu waa 4000 mAh. A71 batterigiisu waa 4500 mAh. A51 cabirkiisu waa 172 gram. A71 cabirkiisu waa 179 gram, waxayna ka samaysan yihiin Gorilla Glass 3. Dhammaan gadaal dambe waxay ka samaysan yihiin plastic. Labadooda waxay duubi karaan 4K videos. Fingerprint-ga waxay ku leeyihiin gudaha shaashadda. Charger-kooda waa Type-C, waana fast charger. Haddii aad haysataan labada mid ka mid ah, ama aad haysataan taleefannada Samsung kuwa u dambeeyay oo ku shaqeynaya Android 10, hoos inoogu soo qor. Waxaan ka soo diyaarin doonaa insha Allah features-ka ay leeyihiin. Mahadsanidin.